بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed madaxda wadanka iyo madaxda gobolada war saxaafadeed ka soo baxay rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ka soo baxay maanta waqtiga aan idin hadlayno saxaafadeedkaas wuxuu ku socdaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka gobolka Banaadir rugaha ganacsiga maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya federaalka ah ujeedada war saxaafadeedkan wuxuu la xiriiraa warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed maalintii xilka laga qaaday wasiirka ganacsiga mudane khadra isla maalintaas laga qaaday xilka maalinka ka horeysay warqad ka soo baxday oo sumadeedu ay halkaan ay ku xusan tahay war saxaafadeedkuna waan idin qaybin doonaa arrinka warqadaasi waxa uu ka hadlayaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafaadka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed hore ayaan ula wadaagnay ummadda Soomaaliyeed rugta ganacsigu inay tahay rug ganacsi oo madax bannaan hoos tagtana kana mid ah xubin ballaaran ka ah bulshada rayidka ah sidaa darteed waxa aad la yaab noogu noqotay in wasiiradda xilka ka tagaysa ay soo saarto qoraal fidna ka dhex abuuraya ganacsatada ku dhaqan gobolka Banaadir isla markaana aan ku fadhiyin sal sharci ah taasi oo ay si ku meel gaar ah warqadeedu ugu magacaawday xubno aan doorasho ku soo bixin inay sii hayaan xilka gobolka Banaadir magacaabidaas waxa saldhig ay uga dhigtay sharci soo baxay 1985tii waqtigaas oo dawladda Soomaaliya wadanka Soomaaliyeed uu ku jiray dawladdii kacaanka ee hanti wadaaga maantana dhowr iyo 30 sano kadib dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya caalamkuba waxa uu ku jiraa suuqa xorta ah iyo maamulka waxaana burinaya waxa ay soo saartay wasiiraddu sharcigii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed warqadii ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha maanta jooga wadanka mudane Khayre iyo warqadii ka soo baxday ee u dambeysay wasaaradda ganacsiga wasiirkii ka horeeyay ayada saddexdaas nidaam warqadii ka soo baxay oo dhan waxa ay ka soo horjeedaan sharcigii soo baxay 1985 nambarkiisa 22 ee wasaaraddu dhowr mar ay cuskatay sidoo kale warqadda kor ku xusan waxay si toos ah uga hor imaanaysaa dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 16aad dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 23aad iyo dastuurka qodobkiisa 123 farqadiisa afraad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo intaasiba qeexaya suuqa xorta ah ismaamulada xorta ah maamul u sameynta iyo ka qaybgalka qofka shakhsiga ah ganacsatada ah inuu ka qayb galo hadba ururka uu u baahan yahay iyo daladii uu u baahan yahay waxa si hufan oo cad loo wada og yahay in xalinta khilaafaadka ganacsatada gobolka Banaadir maamul u sameyntooda ay gacanta ku hayaan ganacsato magac iyo maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed ee ganacsiga gobolka Banaadir waxa noo cadaatay in wasiiradii hore aysan dhexdhexaad ka ahayn arrinta khilaafaadka u dhaxeeya rugta ganacsiga iyo warshadaha ee gobolka Banaadir sidaa darteed rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ee heer qaran waxay cadeynaysaa in aanay aqoonsanayn qoraalka ka soo baxay wasaaradda ganacsiga iyo waxa uu tilmaamayaba labo waxaan soo jeedinaynaa in ganacsatada loo madax baneeyo in ay si madax bannaan iyagu isku doortaan si loo dhiso maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir si kalsooni loogu qabi karana loo dhiso warqadda ay soo saartay maalintii ugu dambeysay shaqadeeda oo ay xilka ka tagaysay wasiiraddii hore ee ganacsiga waxay caqabad cusub u abuureysaa hogaaminta wasaaradda iyo wasiirka cusub waxay hurinaysaa khilaafaad cusub oo la geliyo ganacsatada gobolka Banaadir oo culeyskeeda iska leh afar inagoo og in wadankeena uu ku dhaqmayo nidaamka dhaqan dhaqaale ee xorta ah ama wax free market economy la yiraahdo waxa nasiib darro ah maamul xumaana ah in ganacsatada oo wadankan laf dhabar u ah noloshiisa iyo dhaqaalihiisa maamulkooda iyo isdoorashadooda faraha lagula jiro iyagoo ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed ee haba yaraatee aan hoos tagin dawladda wasaarad ka mid ah iyo xafiisadeeda aad iyo aad ay u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq taa waxa igu weydiisaa ka jawaab hadii kale gacanta leen ka saari warqadaan oo qoran